السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maan taariikhda waxay ku beegan talabaatan afartii bishii laba iyo tobanaad kun afar boqol afartan todoba ku beegan tobankii bishii lixaad labada kun labaatan lixda war xasaasi ah ku saabsan marinka hormuz iiraan dagaalka iiraan iyo israa'iil maraykanka oo dhinaca warkaas ayaa waxaan rabaa hal qodob ku saabsan inaan la wadaago kusoo dhawaada inta dhimata ilaahay u naxariisto inta xanuunsan ilaahay caafiyo wixii muraad leh muraad khayr ilaahay siiyo aamiin. Trump oo ku dhawaaqay howlgal sir ah oo lagu fulinayo hormuz indiyana cabasho ka gudbisay weerarkii maraykanka markab xamuuli ah oo ku sugnaa gacanka arbeed agagaarka marinka hormuz sida ay lagu arkay waqooyiga ras al qamiya oo ku dhow xadka muusan ee cumaan xilli uu socdo khilaafka maraykanka iyo israa'iil iiraanna maraakiibta xamuulka ee gacanka arbeed. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo arbaca ah oo shalay ahayd shacabka ka qaaday wuxuuna ku tilmaamay howlgal sir ah oo sheegay inuu ciidamada maraykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa maanta oo arbaca ah shaaca ka qaaday wuxuuna ku tilmaamay howlgal sir ah inuu ciidamada maraykanka ku amray inay ka fuliyaan marinka biyoodka hormuz halka hindiya ay u yeertay diblomaasi sare oo maraykan oo joogo New Delhi si ugu cabashada weerar lagu qaaday markab ku dhawaa xeebaha Cumaan kaasoo sababay in saddex hindi ah lagu waayo shaqaalaha markabka. waxaa leeyahay meesha u dhow Cumaan dekeda Cumaan ama biyaha Cumaan ayaa maraakiibta maraykanka uu duqeeyey waxaana lagu waayay saddex hindi ah. dowladda hindi safiirka uu joogo caasimada New Delhi ee u yeertay sida cabashada ay magaranaysaa ula wadaagto ayna ku weydiiso su-aalo. Trump ayaa ku sheegay qoraal uu ku qoray bartiisa bulshada Truth Social inuu bishii hore amray ciidamada inay fuliyaan howlgal sir ah si loo taageero maraakiibta shidaalka iyo maraakiibta ganacsiga ee ku gudbaya marinka hormuz. wuxuu sidoo kale sheegay in dadaalkaasi uu sababay in ka badan 100 milyan oo fuusta. dadaalkaas uu sameeyay Donald Trump ayaa wuxuu sababay 100 milyan oo fuusta oo shidaal ah ay si nabad ah ugu gudbaan marinka biyoodka hormuz iyo in ka badan 200 oo markab oo ganacsi ah si ammaan ah uguna gudbaan. wuxuu ku tilmaamay guusha howlgalkani inay tahay mid maraykanka uu ku maamulayo marinka biyoodka hormuz ay iiraanna maamuleyn isagoo ku faanaya isagoo sheegay in ciidamada la jabiyey dhaqaalihiisana uu burburay sida uu sheegay. cabashada diblomaasiyeed oo hindiya waxay sameynaysaa cabasho diblomaasiyeed. dhanka kale hindiya ayaa u yeertay diblomaasi sare oo maraykan ah oo ku sugan New Delhi kadib weeraro lagu qaaday markab ku dhawaa xeebta Cumaan taasoo sababtay in saddex hindi ah la waayo. saraakiil ka tirsan dowladda hindiya ayaa u sheegtay AFP in wasaaradda arrimaha dibadda ay u yeertay kusimaha safiirka maraykanka ayna ka u gudbisay cabasho xoogan oo ku saabsan weerarkaas. wasaaradda arrimaha dibadda hindiya ayaa sidoo kale sheegtay in 21 badmaax hindi ah la badbaadiyey
halka 3 kalena ay weli maqan yihiin kadib weeraro lagu qaaday markab ganacsi oo ku dhow Cumaan. waxay intaasi ku dartay safaaradda Hindiya ee Cumaan ay si dhow ula socotay xaaladda ayna la shaqeynayso mas'uuliyiinta Cumaan howlgalka samata bixinta ay u sameeyeen badbaaxayaasha 21da Hindiyaanka ah. wasaaradda waxay sheegtay in weerarada lagu hayo maraakiibtaasi ganacsiga ay yihiin kuwa walaac leh oo ka dhashay. marka waxaa rabay warka inaan la soo gudbiyo ku saabsan Donald Trump oo faanay uuna dhahay waxaan maamulaynay marinka Hormuz, waxaana dejinay bishii la soo dhaafay qorsho oon ku samata bixinayna maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta xamuulka wadaan, waxaana intaasoo soo badbaadinay 100 milyan oo fuusta oo si nabad ah kusoo meesha ku mareen. meesha anaka marinka biyoodka Hormuzna anaka maamulayno ee Iran ma maamulayso. alla been badana ay faan badana.